Assalaamu calaykum saaxiibayaal, muuqaal samayntu waa xirfad aad iyo aad muhiim u noqotay sannadahan dambe oo waxa aad si fudud ugu baran kartaa taleefankaaga gacanta iyo kombuyuutarka iyada oo ah lacag la'aan. Markaa dhalinyaro, waxa aan idinkula talinayaa in aad bilowdaan xirfadaas oo aad kaga shaqaysan karto warbaahinada oo aad iyo aad ugu baahan, iyo qaab si shakhsi ahba oo maanta waxa aad baraha bulshada ku soo gudbin kartaa wax aad dadka uga faa'iidayn karto sida warbixinnada, dhacdooyinka, qisooyinka, waxbarashada iyo in badan oo aan halkan ku soo koobi karin. Daawade, intaanan muuqaalkeena u gelin muuqaalka like-saar haddaad nagu cusub tahay, nagu soo biir. Haddaba daawade, waxa aad hadda bilaabi kartaa kanaal YouTube. Haddaba muuqaal samaynta waxa ay u baahan tahay baraatiko iyo ku celcelin fara badan. Haddaba saaxiib, waxa aan kula wadaagi doonaa barnaamijyada ugu fiican ee lagu sameeyo muuqaal taleefan iyo kombuyuutarba. Aynu ku horayno dhanka taleefanka. Applicationka koowaad ee aan kula wadaagi doono waa CapCut, oo ah muuqaal sameeye aad iyo aad u fiican oo waxa walba aad ka helayso hadday noqoto templateska, lyricska iyo codad. Applicationka labaad waa appka InShot. Isaguba kama dhaco CapCut, oo waxa aad si lamida uga heli kartaa waxyaalaha